habeen hore guriga aaday darsan deganay guriga u socday ilmihi al dheer ilmihi xasha jidka isku bursanay ana dhafarsan ari leeyahay jidka isku bursanaa guriga u socdaan dhay maxay qosay ma durkas la aadaan al dheer ilmihi iyo xasha shaqo lagu bursoy anigoo shaqo ka imaaday 8 saac weynimo ay tahay laba saac jidka lagu siyahay meel joogi kar ma aha 20 jiraan nahay nafaq la'aan meeshan ugu haysa meeshan waa ku shiisanahay wax ahayna ma laha wadankan xaquuq ma lihin dadkii diinta ku hadli lahaay oo culimada Palestine iyo Syria ay ka hadlooyin dalka siyaasadiisa ma lagu hadli karo meedii Islam waa ka xumahay inta Soomaaliya u dhashtay dibadaaf ilaa iga dhigay loo socda iyo jagboonta dhirkiisa anaga shaqo ma soo aadnay mis jagboonta anaga feel ma soo baxnay mis jagboonta soo aadnay anaga shaqo ma soo baxnay mis macnaha jagboonta soo aadnay anaga waxa soo aadnay shaqo soo aadnay kala marna ma laha mar qaar ka hadaa fiirsid waxa u maaysan anaga dambiilinahay sida nolol dhaqmay ninka wax qarxinayo wax dhibaatooyin anaga maniid ninka dawladda anaga maniid shacabaan nahay sida nolol dhaqmay hadaa arsid waxa u maaysan anaga dambiilinahay annaga aakhira ma hadal leen konta kuna sanana sugayso cimri waxaan soo dhimisay waan ugu filan tahay al dheer hada sheekh walaalayaalow ina heshiisiin oo Soomaali u tanaasulsiin isku daya dad waaweyn Ilaahay ka dhigay hadaa la heshiinaynin in banaanka la aado rag was dili jiray maatada ilmaha laga dhaxbaho barmageedada laga dhaxbaho lisbaduuqo la kala akaado ama isku baabo Soomaali laba wada afar wada kala afar malaha bilaash wax ma yaalso soo wareejina boorsa la baara iyo عندي حق يالا iyo kana nafaqlaan yaal dhin balaayada meesha ay ka jirto wada arkaa waana loo soconi sameecada mooto loo socda iyo jagboonta dhirkiisa anaga shaqo ma soo aadnay mis jagboonta anaga feel ma u soo baxnay mis jagboonta soo aadnay anaga shaqo ma u soo baxnay mis macnaha jagboonta soo aadnay anaga waxa soo aadnay shaqo soo aadnay jagboonti ma ana soo aadin feel ma ana soo aadin inaan shaqeysana u soo baxnay deemana nagu leeyahay mootooyinka dhan kira ku socdo nafaqlaan nahay madaxayna waxa u galay waa caabuq iyo isbahaysto waa ishiid waxa anaga aan ku tariibna tamaysan hadaan lacag haysan wajigiina waa ka wareegleen wallahi billahi ilaahay magaciisa ku dhartay rabbigi arligan la ku dhartay maanta hadaan 10 kun oo dollar haysan lahay maanta hadaan 10 kun oo dollar haysan lahay wajigayga al dheeri hada sheekh wallahi inaan arkaan wallahi waa ka dhuuman lahay meel nolol jirto wadanka gaalada maanta wax laga sheegay maanta ka amaan badan oo maanta waa ku noolaa kartaa amniga ku haysta waxbarasho ku haysta gaariga la dhimay kala wareeg mootada la dhimay kala baldaha kala wareeg aan dhawayaan wada jiray laba sana soo waday waa ku soo waray waa soo dhigay meel la maraa la waay mootaan ku soo laabtay maantay waxaan buriyaa mootada kaliya buriyaa hadaan waay habeenkii jida xirnaay iyo qabac laga yeeli maay wadankan ku rafaasanaay ilaahay arlagan lahaay fariin waxa uu dirsanaa si shakhsiyan aniga waxa uu dirsanaa Soomaali kala dhan ku dirsanayay ani kaliya sideen ka hadlaa maanta tii taagan tahay ilaahay arlagan lahaay waxa ka codsanaa anoo Cali Xasabaana adoonkiisa ah inuu beledka iga wado beledka khayr badan geeyo si aan ugu noolaado nolol fiican u hela maxaa yeelay maanta cimriga ilaahay siiyay way u socdaa 8 sano si mara hal cunug ma joogo madaxay waa cadaaday naag cilisa taa wax u guursan ma haysana nafaq la'aan haysa korkeena waraa gaari baraada oo baakada oo aniga aan ku taariibo kala soo qorxiyoya xasan sheekh iyo aldeera hanti dalka dhan isu gubooyay hal doorna ma siinooyin wixii gaala soo dhibto dhan ay la cunuy doorna ma siiyooyin aniga waxaan leenahay ilaahay naftaana galshay aan naqaana asigaan xisaabanaay asigaan ka baqnaa waraa imaamka oo masaajid ku dujisanayo salaada ku dujinayo hadduu salaada gafo u sheegay meel isku sheegayna dhiiga daadanayo Soomaali dhexdeeda meel isku sheegi karin imaamka la ta kasoo soo dujinay hadduu hal salaad ama hal ragcad hadduu qaldata waa in loo sheega diinta aan fartay waa in ilaahay ku xirno oo waliba toos ilaahay ula hadlaayo oo qalad ka dhaca loo sheegoya miyaan dadka kale la hadli karin dadka al dheerihan sheekh adoom u yihiin ilaahay adoom u aha haday Soomaali ilaahay adoom u aha leed beledka waa hagaag lahayd anagana meesha kuma rafaad lahayn gaalada dadka hubay kala siisaa hal maalin hub la'aan noqdaan 24 saac suuq xooyi ilmahan waa isku dhameeyeen ayagana ma dhimanooyin waxaan leenahay Soomaaliya markasta waa joogtay oo maqlaysiinay aniga halaan waxa iga keenay naftayda cimrigayga hal ii soo horay waxaan ka codsanaa qof kasto ilaahay aqli siiyay inuu i badbaadiyo dalka aniga geediyan ka ahay waxaan ku tahriibaa qofkiisa oo soo gudaa wallahi meesha meel joogi kar ma aha 20 jiraan nahay nafaq la'aan meeshan ugu haysa meeshan waa ku shiisanahay wax ahayna ma laha marka waxaan ka codsanaa Soomaali meel kasta ay joogto inay gargaar noo fiirso qof kasta dhalinyarada wax qaban kara dalkan laga saaro waa isku dalbaabaanay dad aan waxba dhameeyna dad jiisan ku dhamaaday wax kaaga si daran kale بس وحيد منزل
habeen hore gurigii aadaay darsaan deganaay gurigii u socday ilmihi caldheer ilmihi xasan sheekh jidka isku bursanaa anoo dhafarsan aan leeyahay jidka isku bursanaa gurigii u socdaan dhahay maxay qusay may durkas la aadaan caldheer ilmihi iyo xasan sheekh lagu laas bursooy anigoo shaqo ka imaaday 8 saac habeenimo ay tahay aan 2 saac jidka lagu sii ahay wadankan xaquuq ma lihin dadkii diinta ku hadli lahaay oo culimada Falastiin iyo Syria ay ka hadlooyin dalkaas siyaasadiisa ma lagu hadli karmaa diinta Islaam waa ka xumahay inta Soomaaliya u dhashtay dibadda ilaahay dhiga